السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij ku saabsan wararkii degdega ahaa ama war degdeg ah oo hadda soo dhacay. waa xilli saqdhaxa ah waxay xisaabsan tahay aroornimo Arbaca taariikhduna ay tahay 8 sanadka 2026. haddaba barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahin doonaa xaaladda wararkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay dagaalka ka soconaya gobolka Bariga Dhexe. waataan ogeyn in Iran loo hanjabay oo la yiri saacadu markay xilliga ku dhacdo oo hadda waa soo dhaafnay saacadii waxaad la kulmi doontaan waxaan horey loo arag. adduunkii oo dhan baa sugayay ninkii Trump ah wuxuu sameeyo. haddaba war hadda dhow soo dhacay waxaa la leeyahay waxaa Trump uu sheegay in uu lagu heshiiyey 2 isbuuc in la hakiyo dagaalka. 2 isbuuc gudahoodana in wada xaajoodyada xoog loo galo dagaalkana markaa lagu dhameeyo. Trump marka wuxuu yiri arintan waxaa ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo taliyaha ciidamada Pakistan ayaa si wada jira uga shaqeeyay. waayahay marka arinkan xabad joojinta ah Iran maxay ka tiri? wakaaladda wararka ee Tasniim war hadda iyadana soo dhacay waxay leedahay in Trump uu aqbalay shuruudihii Iran. sidoo kale telefishinka Iran ayaa isaguna warkaas sheegaya. Iran waxay taagan tahay shuruudaheennii aan gudbinay oo ilaa 10 ayuu aqbalay Trump. Trumpna wuxuu leeyahay waxaan ogolaaday weerarkii weynaa ee aan qaadi lahaa inaan muddo 2 isbuuc ah isaga iyo weeraradii kale lagu hayay Iran la joojiyo. waaye marka labadaas sheeko ayaa socota. Iran waxay leedahay waxayni ayuu cadawga Mareykanka iyo Saanuniyaduba ay aqbaleen leedahay. Iran saasay leedahay. waxaa la dhahayaa telefishinka Iran iyo wakaaladda wararka Tasniim iyo waxa dhan Iran saasay leedahay. CNN-ka ayaa isaguna hadda war soo geliyay. CNN-ka wuxuu leeyahay Israa'iil iyaduna way waafaqday ama way ogolaatay 2 isbuuc ee xabad joojinta ah. 2 isbuuc ee xabad joojinta gudahood in markaa wixii dagaala lagu dhameeyo. ninka Trump marka wuxuu leeyahay arintanu Mareykan kaliya ma ahan xataa dawladaha gobolka Bariga Dhexe danahooda iyo wuxuuda la ilaalinayaa. saas darteed ayaga laftirkooda dantooda ku jirta. laakiin Trump wuxuu leeyahay shuruudda waxaa ka mid ah 2 isbuuc in meeshii xirnayd ee marinbiyoodkii Hormuz la fasaxo maraakiibta halkaa joogta kulligood ooda laga qaado. waataan ka hadalnay ilaa 2,000 oo markab sida ay qortay dhawaan jaridda la Wall Street Journal ayaa halkaa ku xadhiban. marka in maraakiibtaas ooda laga qaado 2 isbuuc marinbiyoodka si nabada lagu maro ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Trump ayaa waxyaabaha lagu heshiiyay kamid ah. Iran iyadu marnaba ma soo hadal qaadin. midda kale Iraniyiintu waxay leeyihiin xabad joojintani waxay saameynaysaa gobolka oo dhan. macnaha gobolka oo dhan maxaa laga wadaa? Israa'iil ma weerari karto Xisbullah. awlaadeedii lama taaban karo. in Iran inta lala heshiiyo oo meel lagu la yiraahdo 2 isbuuc xabad joojin kula galay oo haddana Xisbullah iyo Xuuti iyo jugta laga geliyo ma ogolaaneen. marka xabad joojintu waxay leedahay Iran oo lagu heshiiyay 2 isbuuc ah waa mid camimaysa gobolka oo dhan. dagaalka oo dhan joogsanaya 2 isbuuc cid weerari karta laba ma jirto. 2 isbuuc marka inta lagu jiro waa laga shaqeynayaa sidii
heshiis daa'im ah loo gaari lahaa loogu bedeli lahaa oo xabad joojintii ay isku bedeli lahayd heshiis. marka Trump wararka kale uu soo qorayo waxaa ka mid ah xilligan wuxuu leeyahay annagu hadafkii ugu weynaa ee aan ka lahayn Iran waa gaarnay, macnaha wixii aan u weeraraynay waa ku guuleysay iska faanaya de odaga waa taqaaniin waa ku guuleysanay. marka haddana waxaan rajaynaynaa labada isbuuc ee xabad joojintu socoto oo la hakiyay weerarada la hakiyay in marka hawshu ay sidaa socon doonto. marka waxaa leeyahay Trump warkiisu marka waa kaas, Iran warkeeda iyaduna waa kaas. Israa'iil war rasmiya hadda aan idila hadlayo weli kama soo bixin marka laga reebo warbaahinta Mareykanka gaar ahaan telefishinka CNN oo yiri Israa'iil iyaduna way waafaqday oo way ogolaatay. marka cid kasta horta nafta haysa meeshaan Israa'iil waxa loo diyaarsaday caaw oo baaratay loo diyaariyay gantaalo waxa loo diyaariyay Faatax iyo Khaybar la yiraahdo oo Iran ay sheegtay waa la kala tagay jiray alaabtii maska ahayd waay oo saas u soconaysay. haddaba marka alxamdulillah marka xaalku hadda wuu dagay wixii kacsanaa dhigta u taagneed qof walba dadka muslimiinta waxa duca ay gamayeen oo ay soo ridayeen oo ay lahaayeen ilaahayow Iran ka badbaadi waxa lala maagan yahay ninkan ma nuclear oo ridi doonaa ma waxaasuu samayn doonaa ninkan sidiisaba waxaa ogaataan waa faataalo weyn waayaa la yidhi ninkan waa nin uu ku handadaya hadday ku martana nasiibka waxa handadaada waxaanoo dhan waxa waa handada waxa aan ku ridi doono leey. laakiin Iran shuruudaha marka 10 ah wariyaha ku sugan Al Jazeera ee magaalada Tehran oo goordhow la wareystaan dhageysanayay wuxuu yiri shuruudaha kuwa ugu waaweyn ilaa 5 ah ayaan xogtooda hayaa u leey. 5taas marka waxa uu leeyahay in dagaalka sidiisaba la joojinayo oo xabad joojintani waxa kan iyo iska sheeka ay tahay. midda kale wuxuu leeyahay Iraaniyiintu waxay ii sheegeen magdhowgii arrintiisa in meel la saarayo oo maaratay wixii laga burburiyay Iran way doonaysaa. waxay leedahay damaanad qaad ayaan u baahanahay howlo badan ee marka ay wada qodobada kamid ah marka qodobadeedii iyadu waxay leeyihiin warbaahinteeda gaar ahaan hadda saaran telefishinka Iran iyo wakaalada wararka Tasniim waxay leeyihiin shuruudaheeni ayuu Trump aqbalay. waliba Trump ma dhahayaan waxay leeyihiin Mareykanka cadawga ah iyo shaanuuniyada leeyahay marka erayadaas ay isticmaalayaan. marka al-umuum marka muhiimada oo caawa ilaa saakay waa bari hadda joogna aniga London xilligan waa waqti dambe waaye waa xilli waa bari ah waaye Soomaaliyana de waa iyaduna waagaaba sii bari raba. marka caawa marka wixii la filayay ma dhicin alxamdulillah dadka Iraaniyiinta ilaahay waa ka badbaadiyay ninka hamaga wuxuu rabo isaga ridi karaa nin maaratay xataa ay sheegeen waaye baarlamaankiisu waxay yiraahdeen xubno ka tirsan war ninkan mukhtal aqli waaye ninkan waa waalan yahay mana maaratay inuu hogaamiyo ma u qalmay yiraahdeen wadan inuu hogaamiyo ninkan noocaas. marka waa niman xildhibaanadiisii ay saas leeyihiin oo adduunkii oo dhan ay arkaan. marka ninkan ilaahay baa horta shartii uu waday ka leexiyay wuxuu dabacsanaaba haddii war ay ka ahayd haddii handadaad iyo baanbaan ka ahayd haddii wax runa ay ka ahayd asagay u taallaa. al-umuum marka warkii halkaas ayuu markaa ku dhammaaday. hanjabaadii waxay kusoo gabagabowday in lagu heshiiyey 2 toddobaad oo dagaalka la joojinayo weerarada ilaa joojinayo dhinac kasta weerarada uu joojinayo ayaa lagu heshiiyey. sidaas ayaana warkeena degdega ah aanu ku soo koobaynaa. adikuna sidaa ula socda wax dhacay ma jiraan xalay ilaa hadeer heshiiskaasaa dhacay. ninkii Trump markay saacadu ku dhaweyd ayuu ku dhawaaqay isagaa ku soo dhawaaqay qofkii ugu horeeyo sheegay heshiiska isagu ahaa. haddaba fakarkiina aragtidiina
noo soo qora sida u aragtaan sheekadan. marka barnaamijkii degdega ahaa aan soo galnay inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. like gareey oo share gareey barnaamijka. haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ka iloobin youtube-ka, facebook-na follow gareey. inta aan mar kale barnaamijyadeena kale ku kulmi doono nabadgelyo.